Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa wiilkiina Guleediyo maalin kale oo qurux badan. Sida caadad noo ahayd mar kasta waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe tiraahdo, like tiraahdo, asxaabtaada waxaad ka faa'iidaysaa la sii wadaagtid. Maanta waxaa ila jooga marti aad u culus walaalkii Mustafe oo garabkayga fadhiya. Walaalkii Mustafe wuxuu irfaaqum ama khibrad u leeyahay waxyaalaha ku saabsan sida darawalnimada, luqadaha, tusaale ahaan sida guryaha loo raadiyo, wax kasta oo yacni qof Soomaaliyeed uga baahan yahay ama muctaad uga yahay inuu ka ogaado Jarmalka. Insha Allahu tacaala isaga ayaana la wadaagi doonaa wuxuu noo hayo. Mar kaste waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay fadlan ha naga ilaawin inaad nagu soo xidhnaataan. Isaga ayaan haddana microphone ku wareejin doonaa insha Allah. Mustafa kusoo dhawaada. aad iyo aad waan dhowahay walaalkii Guuleed marna saaxiibkii Guuleed aad iyo aad baan u dhowahay. Horta waa markii ugu horeysay YouTube channel soo hor fadhiisto kullee xaaladda marka ugu horeysay YouTube ka hadlaysana waxa garan karin YouTuberada. Marka insha Allah tacaala walaal aad baan kugu mahadcelinayaa martiqaadkaad igu martiqaaday maanta YouTube-kaaga. Walaalkii Guuleed waan dhowahay mar koobaad iyo mar labaadba insha Allah tacaala waxaan doonaynaa maanta inaynu ka wada hadalno waqti aynu u helnay arrimo xasaasiya oo aynu wax ugu tarayno ummadda iyo dhalinyarada ku nool dalka Jarmalka gudihiisa. Maadaama oo dalka Jarmalka dhowaan sanadihii dhowaa ay dad badan xoog ugu soo qulquleen, waxaynu u baahannahay inaynu waxyaalo badan oo caawimo ah oo dadka kalena xirfad u ah inaynu ka jeedino oo aynu social media maanta sida loo isticmaalay maahay sida waxtarka aynu u isticmaalay insha Allah tacaala. Haddii aan ugu horeyn ku bilaabo xirfadda wadista gaadhiga ama qaadashada liisanka, waxaad yara moodaa in dhalinyarada iyo mujtamaca ku nool waddanka Jarmalka waxoogaa ay dhib ku yara tahay dhanka luqadda marka la eego. Marka insha Allah tacaala waxaynu taaban doonaa xagga liisanka iyo systemka loo diyaariyo. Caadi ahaan Jarmalka waxaa lagu diyaariyaa liisanka dhinac theory iyo dhinac praxis. Marka insha Allah tacaala theory-ga haddii yara dul istaagno adigu ku dhawaad waxay noqonaysaa 1200 iyo dheeraad iyo hidhidhi waasi maximal waxaynu hubnaa inay tahay in ka badan 1200 oo su'aalood. Marka su'aashii isweydiinta leh ee ay dadku isweydiinayaan ba waxay timaadama aanan luqadii Jarmalka aanan meesha ku dhalan aana fahmayn sideen uga bixi karaa 1200 su'aalood. Insha Allah tacaala waxay u baahan tahay dadaal iyo mataqaana wax akhris fara badan. Waxaanu ku caawin doonaa dhalinyarada iyo dadka Soomaalida ah ee ku nool waddanka Jarmalka in haddii Ilaahay yiraahdo YouTube-kan uu leeyahay walaalkii Guuleed aanu ku dulmari doono theory-ga oo af Soomaaliya haddii ay luqaddu idinku adkaato si aad u yara faa'iidaysataan waxna uga faa'iidaan waxna uga fahantaan sida aad ku diyaarin lahaydeen. Insha Allah tacaala qaybta kale ee praxis-kana qaybtaas waxoogaa waa darawalnimo iyo gacan qof walba siduu gacan fudud yahay iyo sidii loo kala darawalsanaa markii waddankii hooyo la joogay wax noocaas u baahantay. Taana insha Allah qof walba sidiisuu isku maareyn karaa, laakiin ujeedada ugu weyn ee doonayna ka hadalna waxay tahay sidee baynu luqadda theory-ga ama su'aalaha aynu u fahmi karnaa. Insha Allah tacaala sidaa daraadeed waxaan samayn doonaa barnaamij waxaan soo gelin doonaa aanu kaga hadlayno su'aalaha aanu af Soomaali ku qeexayno. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa idinkuna waad nala socon doontaan. Waxaan idinku boorinayaa mar labaad oo idin sheegaya in idin channelka la socotaan haddii Ilaahay yiraahdo mar walba oo video la soo geliyo ay idin la socotaan subscribe-na aad saartaan channelka si aanay video kale aanay idin dhaafin insha Allah tacaala. Taasi waxa weeye arrimaha liisanka. Waxaynu ka hadli doonaa arrimo kale oo iyaguna xasaasiya oo dadka badidooda ay u baahan uu isku diyaarin kartay imtixaanka hortii asoo foobqaytunka waxa la dhaho ay Jarmalku u yaqaanaan sida loo sameeyo sida imtixaan la isugu diyaariyo sida adigu waxyaalo badan oo kale sida guryaha loo raadsado magaalada degantii maaha magaalo kale sida ugu dhaqsaha badan la guryo looga helo sida shaqooyinka loo raadsado waxyaalo ay ku kala duwan yihiin gobolada Jarmalku. Adigu waxyaalahaas oo fara badan baynu ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Markaa waxaan rajeynayaa in idin YouTube soo gelino xaaladdu halkay socoto waxyaalo badan aad naga kororsataan. Marka insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa walaalkii Guuleed arrin fiican buu sameeyay maadaama uu ka fikiray mustaqbalka dhalinyarada waqti xaadirkan u baahan in waxyaalo badan loo sheego oo u baahan in luqadooda Soomaaliyeed loogu faahfaahiyo oo loogu sharaxo. Waynu dareemi karnaa dhibka ay nagu haysto luqadda Jarmalka. Waayo maanta warqad marka lagu soo diray luqad Jarmal ku qorantay waxoogaa kadeed bay kugu yaratay laakiin af Soomaaliyeed ku qornaan lahayd wax dhib kugu ma haysan.
insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa wixii inaanu fududeyno af soomaali oo aanu ka dhigno insha allah halkan idin nagala socono wixii rayigiina aan noogu reeba insha allah waa akhriyi doonaa waananu accept garayn doonaa waa aqbali doonaa commentiga waxaad noogu reebtaan insha allahu tacaala saasaan iskula soconaa mar labaad waxaan ku wareejinaya walaalkii guuleed aad baad u mahadsantahay walaalkay Mustafe siduu idiin sheegaba wixii rayiga nala soo wadaaga aniga igula soo xiriira insha allah isaga aniguna su-aashaad qabtaan isaga ayaa idinku wareejin doonaa isaga idinka soo jawaabi doonaa insha allahu tacaala siduu idiin sheegana wax kastoo aad muctaad uga tihiin dadka jarmalka intii awoodeeda aqoonteeda anaga ayaa insha allahu tacaala idinka qancin doonaa wixii kaloo macluumaada iyo wax kastoo aad u baahan tihiinba halkaas ayaan ka wada socon doonaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته